عليكم ورحمة الله وبركاته وشانل تقوى الصومالية شانل قيبتي برنامج كديني أهاي أولوات رمضان كلوات رمضان مبارك شانل سبسكرايب لايك شير سمي كومنتي كان هوس قريب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiin waan salaamay kusoo dhawaada channelka taqwa Soomaaliya channel maanta iyo video cusub iyo qisad cusub oo baran doono oona ka faa'iidi doono insha Allah. Hadda channelka ku cusub tahay subscribe saar like saar share garee la wadaag asxaabta yalla waa bilaabeynaa. maanta waxaa ka hadli doona insha Allah xaasaska nabiyullaahi ayuub calayhi salaam iyo nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxaana ka faa'iidi doonaa qisadooda. waxaa ka bilaabeynaa nabiyallah ayuub calayhi salaam xaaskiisa magaceeda waxaa la dhahaa sidaa la sheegay raxma radia allahu canha bint maysha bint yuusuf bin yacquub bin isxaaq bin ibraahim calayhim salaam wallahu aclam. qisada nabiyallah ayuub calayhi salaam waa kasoo hadlay qofkii fiirsada sida qisadan iyadana dhammaystirkeeda camal waa ambis kale yani wax yariis ah ku jirto bis aa ka faa'iidi doonteen insha allah. ayuub calayhi salaam xanuunkiisa oo ku wada dhacay oo hore kasoo hadlay waxaa la dad waxay dhaheen wuxuu hayay 17 sano amba 17 bil dadna waxay dhaheen wuxuu hayay 7 sano iyo bilooyin fa allahu aclam. anaka waxaa rabnaa xaaskiisa maxay samaysay inuu ogaano. markaasi ayuub xaaskiiska waxay u dhahdeen ayuubo yani ilaa goormay aasaan ahaa doona ilaa goormay aasaan يعني تعبان ونقد دونته إلا قرمي أنا كلي كعاونة إلا قرمي أنا أذيك بس كليا مرافق أم بس كلا أكو عاونة أو أقف كلا أجوجين. سو نبي الله أيوب عليه السلام وحوده هي ما حسوسته وده هي النعيم كأنبا يعني راح حدا أنبا أكو جرني هذا ها markaas markuu weydiiyey meeqaa ku jirnay naciimkaasi waxay u dhahday waxaa ku jirnay 7 sano. markaas wuxuu dhahay hadda yani jiradan iyo rafaadka meeqaa ku jirnaa waxay dhahay 7 sano. wuxuu dhahay ma sabri karna miya ilaa 7 sano noqdo. markaasi waxaa rabtay dheh 7 sano aan naciim ku soo jirnay fa 7 sano aan ku jirna yani saraa u darraada aan ku jirna 7 sano. markaas wuxuu dhahay sabr sidaa 7 sano usoo raaxaysan 7 sano aan u rafaadno kadib hadal hadaa rabtid. markaasaa naagta adiga soo shaqay jirtay waxay aadi jirtay guryaashii soo nadiifi jirtay dadkii dharka usoo dhaqi jirtay dadkii adiga waxyaalaha u samey jirtay xaaska nabiyallah ayuub asaga markuu hadoo baxiyo oo shaqo soo raadsado dadka dhan waxay dhahaan maya ha ii imaanina hanoo imaanin jiradaya kacabsana inaa nugu daaratid hadoo rabyo inuu odayga oo eri dad u raaco waxaa la dhahaa maya erigaa noo xanuujiya amba erigaa noogu daarahe maya. markaasa xaaskiisaa rooneed xaaskiisaa baxeysa meelaha kasoo shaqey jirtay. markaas markay baxdaba waxay keeni jirtay adiga markay maanta camal guri soo nadiifiso waxaa lasoo sii haya raashin markaas raashinka guriga keenaysa haddii maanta guri soo nadiif ama meel kale soo hagaajiso yani adiga waxay soo qaadaysaa mar walbo lacagteeda amba waxay ku shaqeeyaysaa markaas ay soo qaadan jirtay. markaas mar walba weydii jiray nabiyallah ayuub calayhi salaam mar walba wuxuu dhihi jiray hay maanta maxaa soo sameeyay markaas waxay dhahaysaa dharaa soo nadiifiyay waxaa soo hagaajiyay yani raashinkay mar walba u keen jirtay. marka waxay bilaabeen dadka inay u wacaan ambiskal inay shaqaysiinin waxay ka cabsadeen jirada oo hayso nabiyallah ayuub calayhi salaam inay u gudubmato xaaskiisa ee iga ku daartaan ee ka cabsadeen. fa haddee xaaska nabiyallah ayuub calayhi salaam haddee baxdo ay shaqo soo raadsato amba dad ay rabto inuu soo shaqaysto sida raashin guriga u keento يعني dadka dhan waxay dhihi jireen ma anaga hanoo shaqeynin aad meelahaas ka raadsi dad kale raadi qof kale u tag yani qof walba yani qof u shaqeysay weysay oo mar walba guriga soo noqon jirtay iyadoo waxba gacanta ku haynin iyadoo cunto wadan iyadoo wax dhan oo waday fa xataa ma haysanin wax ee gato ee lacag ku soo qaadato ee raashin ku soo gataan xataa ma haysanin. fa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u karaameeyey oo wuxuu siiyey timo amba 2 dab oo dheerdheer oo qurux badan. fa labadii dab oo tinta ahaa oo dheerdheera oo quruxda badnaay aad u dheeraayeen oo quruxda badnaa ee hal dab ee jartay. markaas markay ay jartay ay toosisay adiga tintii ay shaleysay waxay ka gaday gabdhaha kamid ah kuwa ashraafta amba kuwa lacagta leh ee ka gaday. fa gabartaasi laga gaday tinta waxay ku sameey jirtay timaha ay ku daba jirtay amba timaha ay ku xiri jirtay. markaasi for example camal haddii tintaasi ay qaato oo dheerdheer gabadhaas way qaadanaysay markaasi tinta haddii tin gaagaaban qabto tintay kusii dabaysay markaas sida tin dheerdheer ay u lahaato. waa matalan haddoo yahay tinteeda 1 mitir amba 2 mitir haddoo yahay wuxuu noqaa 4 mitir 5 mitir yani timihiyaa aad u dheerdheerahay. laakiin hadda taasi hadda waa la naclayn taasna waxaa waa lacnad waana xaaraan alwaasil walmustawsil.
taas markay tintii soo gaday raashin iyo waxaa soo gaday ee keentay markaasuu nabiy allah ayuub calayhi salaam weydiiyey haye maanta maxaad soo shaqaysay markaas waxay dhar iyo waxaasaa soo nadiifiyey iyadoo timaha u xiran yahay tarxada tinta ugu xiran tahay markaasaa haddana ayaamo kasoo wareegeen wax weysay haddana sii baahdeen markaasay haddana dabki kale oo hiray ee haddana soo jartay haddana markay dabki kale ee soo jartay ee markay soo gaday ee raashinka keentay markaasuu nabiy allah ayuub calayhi salaam wuxuu dhahay tarxada tintaada ka qaad markaasoo arkay timihiida inuu jaran yihiin markaasoo markuu arkay nabiy allah ayuub calayhi salaam tinteedoo jaran oo aad iyo aad u xanaaqay wuxuu dhahay maxaa ana iigu sheegi weysa mumkin xal ahaaya mumkin fikrada ahaaya yumkin wax aad samey lahaa yani ani maxaa ila tasho weysa yani waajib ma aha in ila tashatay yani aad iyo aad u xanaaqay markaasoo ku dhaartay oo aqsamay inuu ku dhufi doono 100 صوت فقصة زوجة نبي الله أيوب ماشي إنه اكتها هدو حاجة اللي دونا إن شاء الله قصة نبي الله موسى عليه السلام إيه زوجتي سدوك جورسده مالها كميدة مركو أو نبي الله موسى عليه السلام أو وكذا أم بأودي لينك قبطي هاي وعرق صاحب لقصة دي رمضان كهلا تفسير صدا و يعني نين أو ما مركز وشيء جاي وحقوده هي يعني ملأ أنا أم بدك لما أكو تشتوها إني اللي قلت له وحقوده أقولك كبح markaasoo markuu gaaray madyan oo wuxuu ariyay dad badan oo bi'ir ambis kale ceel biyo oo kasoo yani yasquun min almaa yani biyo kasoo qaadanayaan oo arkay oo geesna waxaa ka taagan yihiin 2 gabdhood amba 2 dumar markaasay ininka qisadii waxay dhan waa ogtihiin markaasoo biyihii gabdhihii u waraabiyey markaasoo meel gees iska fadhiistay markaasoo wuxuu dhahay rabbi innii lama anzalta ilaya min khayrin faqiir oo meesha ku dhahay ka hor markuu geedka ag fadhiistay markaasee waxay u timid 2 gabdhood mid kamid ah u timid iyadoo xishood yani aad iyo aad u xishoonayso u timid yani iyo umaanay nabiy allah muusa calayhi salaam markaasee waxay u dhahday aabaheeya ku wacaayo sidoo ku yani ajirkaasi aan bis kale oo yani inta nooga caawisay sidoo kuga يعني أجرك أو كسية سيدا نوجو عاوس عمل أجر وحلا يعني قيمة أم بلعك أو كسية سيدا نوجو عاوس عمل مركز سعدان أو نبي الله موسى عليه السلام هو أو سعيه مركزي جبرتني جدال سعته فجبرت محيليه أبو معان أنت كصابع ماها حياة ماشي كصعدة ما كيد هذا يعني ماشي هدالة جارة جيرت هدالة جالة لقى قاس لقى جيرت كوطور يعني جيسكي كوطور يس مركزو نبي الله موسى جيرت كاس وجو بحاي فيريا احترامك إيه حياة حشاتك markaasoo nabiy allah muuse calayhi salaam markuu guriga gaaro adoogu u sheegay waxa dhacay iyo waxaas dhan iyo sidoo ilaahay uga soo badbaayay qoomkaas daalimiinta ahaa ee gabdhaha kamid ah waxay dhahdeen قال سيدة آية كريمة كي ودهذا قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين markaasoo adoogii gabadha dhahay sidii aayada kariimka ee noo sheegtay qaala innii uriidu an unkaxaka ixda bnataya haatayn calaa an tu'jirinii 8 xijaj fain atmamta 10 faman cindik wamaa uriidu an ashaqa calayk satajidunii in shaa allah min alsaalixiin لأن نبي الله موسى عليه السلام مركو سو بحيا وحبا ما هيسانين مركو سو نين كان صالحة وحوده هي 8 حجج يعني إي شقي 6 سنة haddaad 10 iga dhigtidna ixsaan waa yani adaa isiisa yani nin weyna ahay gabdhaha maraaci kari ina oo meeshaas ceelka tago biyo soo waraabiyo waxaas dhan sameeyo ma awoodi fa adiga 8 sano ii shaqay haddaad 10 ka dhigtana insha allah satajidna insha allah min الصالحين fa نبي الله موسى عليه السلام وو يلي فسبحان من قدر سبحان الله يعني بحيتان كنبي الله موسى يعني نينكاس إنو سو ديلو أو سو بحو سو أردو ميشاس عيلكاس إمادو دمر كان ساعدو جيت كاس هرفة ليستو كدو عيستو قبدان أتمادو وحا كدمي زوجة صالحة فيري قصة هذا قصتين إن شاء الله تعالى أساسي كل ما لبدين قصة ما حكى فائدة دونا أو أهل بدن النبي عليهم السلام حاسس كذا هرتكو حكى بالله النبي الله أيوب عليه السلام حاس كيسا دمر قارو حاجرو هذا ما أنت هيستان حنتي بدن أو وح بدن أو هيستان أو نينك هذا وحول بقى سمي جرو نينك ما أنت أو حنوصل أما ما أنت وحسيكيهن جعلن إنا عاويو يعني وحاول ما أنت أني أديجا حنتي ذا هدي دماتي أنا جن دريشة ذاك بحي عمل dad badan asaas ku dhaqmaaya jiro iyo dad maasha Allah tabaaraka Allah wixii gadaashooda iyo wixii hortooda ay weegadayaan iyo ka shaqeynaya intoo ninkooda xoogooda iyo waxooda ka soo ceshto mar walbo
أني وأنا لها زوجة صالح زوج صالح أدونك وفي عن هدي هنا لبضاس بس إنك ما شاء الله وعمرك. marka qisada kaleeto nabiy allah muuse calayhi salaam zawjadiis maxaa ka faa'iideynaa waxaa ka faa'iideynaa laba shay oo muhiimsan shayga koowaad waxaa waa inuu dhammaanin adduunka oo ka dhammaanin wax la dhahaya xayaa hadda ma jirto waxaas oo xishood iyo gabdha nimanka ka xishooha iyo ma jiraan ma badna mana jiro mana arkaysid waa u jeedin tiktok waxa ku jiro qof xishoohays dhan ku jirto tiktok waa u jeedin hadda maasha hadaas la shaqeeyo ma xishoohays إيميلات سلسك قص لايا لسكجي جوجل لسكسعها لسكشكانسا يعني ما وجرتبه حياتي حشوت كده ما دنا وحامل سئني قبليه دنا لقى وضع قاضي يعني حشوت كده ما دنا وحامل سئني قبليه دنا كالوضع دماغي عامل سئلها أنا هدي كان كلاتك فائدة وحوايا مهرك زوجة موسى عليه السلام يعني أضاقيدا ما لكن قصر وين أربا لبا نف إني قشد وايه وحاربا إنا أو جيل إنتاسو جيل أوكينتيد وحاربا طمن إيو بقولي قنطن قرانو ذهبا وحسنا ما لكن وحوله ما دام آتهاي أذيك قف صالح قف قوي قف متين قف فيعن هداتهاي أو لو باهيها أو يعني أنا جانا قف وين هاي أنا هالسجبنوي هالجبراك وقدرسها سيدس لا إيش شقي مهر كذا نصاصوها جبنا فهدا وحاجر الضد أو بدنو مهريال بدنو قال لو ضد البهايو أنت صو شيء ضد البهايو لكن ما حكي هلي جوركي يدهايو طلباتنا وحاوي مشاكل زوجاتك يعني نمنكي إناقيها استقالا يعني هرتا بين معهن أني نوكو جرا ما أنت أهدا قفكو إما وحدي لازم شروط ويجرتا وجران لكن وحاجر وح معقول أهين وحاجر وح عادة لقد اكتئي وح عادة لقد اكتئي فمثلا هدا ما أنت عمل أو قبر هذا أنا أروسكي وحاربة إنا هليكوبتر إماضو وحاربة هليكوبتر كإنا أو يصوري ما وحس معقول ما لحس مجرا وحس وحاوي إنا التفاخر وحسنا ما في عندنا هانتي فمر والبا قصوين كان ساعة ما شيء وحافي عن إنا دقيسنا أو شير قرينا أو خلاص ما عندكم حكت إلاونا معهن وحافي عن مر والبا عمل كان مركا فكري سد إنا دنيا يعني الدنيا أهانتاdan inay ku samaysid waxa fiican yani dunyawi inay ku samaysid yani adduun ahaantadan shayga inay ku sii samaysid ma ahan waa soo maqashay ma salaama ma aha marka videogan insha Allah taala intaas oo ku egyahay waxaan rajeynaa insha Allah inay ka wada heshin dhamantiin khayr badan iyo rajahay afar wanaagsan wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh santa daawashada quruxda badan jazakallahu khayr sida hore ugu socdo channelka ka ilaawin subscribe like share السلام عليكم.